بسم الله الرحمن الرحيم أنعم بغراس الأخلاق باغية صاغت أخلاقي فالنور بدنفها إن شاء الله تعالى براروجinta inama ka dhor qodob bay noqonaysaa qodobka koobaad waxa weeye quraanka ilaahay loogu shukriyo inta dhameysaytay ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu qalbigooda iyo laabtoodii ku sugo arrinka asaga ah sharaf iyo dheeraad waxyaabaha ugu qiimo badan adduunka ilaahay keenay quraanka ayaa ugu sareeya nabigeena kaleey salaatu wasalaam ilaahay asagoo ku abaal sheeganayo wuxuu yiri walaqad aataynaka sab'an min al-mathani wal-qur'an al-'azim la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum إلهي سبحانه وتعالى وحكير النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب يوحنكو سيني قرآن كنتي سكالي وحا الدنيا ذا شوغو أردن وحاد وحنقل تاقي سيني چرم بو إلهي لي بلا سقا يا كفرا وانا كافتومي كرتا الدنيا يا آخرة أسقا يا كفرا آيات كالتنا الله وحوكو يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دادو وحايدين يمد موعظة يا حق ربي إذن كغتمد وقرآنك ربي سبحانه وتعالى iyo hadana wa shifaa lima fi suduri laabta ayuu daweeyaa badankana wuu daweeyaa waa in maskaal isku daweeyaa quraanka kaasa rabbi idin soo dejiyay waxa la raaciyay qul bi fadlillahi ilahi fadligiisa iyo wa rahmatihi nahristiisa marka quraanku waa fadli ilaahay weeye waa naxariis weeye waa shifaa weeye waa mawcido weeye intaas oo dhan markii la isku soo jamciyay fabidhalika falyafrahu kaaha ku farxan buu ilaahay leeyahay farxad weeye marka quraanka maanta la dhameeyay farxad buu noo yahay ardayda dhameysay farxad buu u yahay macallimiinta farxad buu u yahay waalidiinta farxad buu u yahay فبذلك فليفرحوا دتك كسو قيب قالينا مرتي إذا أنا شرف بوياهي وإن إلهي سبحانه وتعالى مركو حوت المامي قرآنك كان إنه شرف ياهي ددنا إلهي وكوريالي ددنا وكوس نغايو قرآنك مكا شرفت عليه إن أنكو فرحنو فرحد أيضا مركا وحر عسن إن إلهي لوغو شكريو والدين تو إلهي كو شكريان معلمين تو إلهي كو شكريان مسلمين تو قدهان إلهي كو شكريان نعمة أيضا هدي شكرين تانا لغا هلانا إلهي وحونا بلان قاضي لئن شكرتم لأزيدنكم هداد إلهي كو شكرسان نعمة سيو الله وايدين كردينيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها نعموين كإلهي دين سيئينا ما حساب كريسان نعمة واوين مركا يكمد هاي لمنت يا قرآنك إلهي سبحانه وتعالى كو يسري وحاك له مركا فرصة نو وضعه قفك أرديد أما أبد كيسا أما قبل ليسي قرآنك لميسي أو حفظسي والدين تا وحامرك لو بلن قاضي نبي عليه الصلاة والسلام ما لنت قيامها قفك قرآنك سو حفظيي ألبس والداه وحال الله لبسيا لبدي سي والد هو يدي يا أبيه تاجا بالله لبسيا تاج وبلد والدنيا ذا وحب بلد ليراه
macna male laakiin bilad ilaahay bixinayo way bilad baa marka la siinaya marka biladaas ayay waxay weydiinayaan rabbi oo xagee buu nooga yimid ubadkii aad quraanka bartay xaqiisa ayaa lagaaga keenay baa la dhihi doonaa waa maziyo iyo darajo way macallimiintana maziyo iyo darajo dheeraad bay ku leeyihiin waayo xadiis saxiix ayaa nabigu wuxuu ku yiri inna allaha wa malaa'ikatahu wan naasi waxay marka ku sallinayaan ala muallimin naasi al khayr dadka khayrka dadka barayo quraankaana ugu horeeya axaadiistii iyo cilmigii la baranaya kamida qofka dadka khayrka barayo waxa weeye ilaahay iyo malaa'iktiisa iyo makhluuqo dhanba way u duceynayaan ilaahay bay dambi dhaaf weydiinayaan waa marka watuyur fil hawaa buu yiri hatta shimbiraha hawada marayo asagay marka ay u duceynayaan wa hatta alhitana fil bihari buu nabigu alayhi salatu wasalaam hatta badda kalluunka ku jiro ilaahay buu marka u weydiinayaa dambi dhaaf marka macallimiintu maziyadaas ay leeyihiin ikhlaas iyo waxa marka ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiinayna ilaahay inuu ku irsaaqo juhdiga ay bixiyeen inay si laban laabaan oo marka meeshan juhdigaas oo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uga rajeeyaan aakhira khayr badan inay ku helayaan adduunyada yaan la milicsanin taa marka intaan uga gudbo waxa kale tan marka milicsanaya dadka waalidiinta iyo amanago dhanba waxa marka quraankan in la weyneeyo ayaa ilaahayna amray weey qof walbo inta uu kalaamka ilaahay weyneenayo ayo allaahtiisa qiimo ku yeelanaya waman yu'azzim sha'aa'ir allahi fa innaha min taqwa alqulub ilaahi ruuxi weyneeyay waxa alla weyneeyay taqwada qulubta galaysa ayay kamid tahay ila taqwadu marka nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri at-taqwa ha huna buu taqwada halkan laga rabay waxa kamida inaan quraanka weyneyno waxa kale to marka nabigu ka sugnaatay inuu yiri inna min ijlalillahi ilaahi weyneentiisa waxa kamida an marka in la weyneeyo alhaamil alqur'aani quraanka ninka xambaarsan in la weyneeyo oo laba shuruud baa la raaciyo jaafin anhu an ka qalalin quraanka غالنا أنا هن كحد جدبن وحاول قرآنكو وحاول إنه سن كحد جدبن يا إنه سن كقللن كعمل فلي روح السجا إلهي ويننتي سيكم تاي إنا وينينه سدا سيا معلمين تمزيد يا شرف أوليهن إلا وينيو ومرك إلهي ويننتي سيكم تاي وحكلت الله بهن يهاي وحن أنو وينين قيمينه وبد كأننا إنتاس إن لا أكبر مركا يي قيمة كويا لنا ين محيا لي مركا عنو ترتنا أما أدلو وينيي حاجة إسكولا ده إيو حاجة إنجليز كإيو ترتن فربضن بالله قالي كاسي مركا عنو سكر دين مايو لكن ماشي قيمة نجشرو وحاجة قرآن كإيو برشديسة دين الإسلام كان يالنا قيمة إيو أيام وحكولنا هاي تاسا قيمة كويا لنا الدنيا آخرا وحنا نقونيسا تانا مركا وبرارجنتا لباد ويان روح والبو أنغا نغمدا إنا وينينو وحا إلهي وينيي أيان لغما مارمانا وحا كاليتو مركا أيان إذين دردار ميا تقوى الله الله إنا كعب سنو تقوى دا مركي لليه هاي حسن البصري وحا لغورينا يا إنو يري روح والبو وحولي الله وان كعب سنيا لكن قليل محققوها بوير كثير من يقولها قليل محققوها بوير sheegashadeedu way badan tahay laakiin dadka ka dhabeeyo way yar yihiin buu yiri ruux walbana taqwa laga rabaa hooyooyinka taqwa laga rabaa aabayaasha taqwa laga rabaa macallimiinta taqwa ayaa laga rabaa ruuxa taqwada markii laga helo ayaa xibnihiisi kale ayaa khayr ka soo fulaya nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri ala inna fil jasadi mudghah idha salahat صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله بير نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي قلبك مركب مهمة دولية
wuxuu yidhi cad yar baa hilibka jirkaaga ka mida waxaa weeye hadday kuu hagaagtana jirkaagoo dhan waa hagaagi hadday kaa xumaatana jirkaagoo dhan baa xumaanaya macnaheedu waxaa weeye haddii qalbigu kuu hagaago carabkaaga khayr baa ka soo baxaya dhagahaaga khayr bay dhegaysan ee marka gacantaadu khayr bay qabani wax walboo khayra ayaad u dhaqaajinaysaa wey haddii marka qalbigu xumaadana carabkaaga shar baa ka soo baxaysaa gacantaada shar baa ka soo baxaysaa dhagahaagu shar bay dhegaysan tallaabadaadu shar weeye dhaqankaagu waa shar weeye adigoo dhanba fasaad socdo oo dhulkan joogo ayaa tahay oo ilaahay ka fogaaday oo khayrku ku yaraaday ayaa tahay waxaasaad noqonaysaa weeye sababtu meesha laga asiibayna waa qalbiga weeyaan qalbiga marka inaan fiirinno dib ugu noqonno waxa aanu jecel lahay waxaan weyneynayno waxaan qabanayno inay ikhlaasi ku jiro qalbiga dar allana ay noqoto waa lagama maarmaan weeye haddii laakiin intaasi aysan jirin qalbigu uu maran yahay waxa khayr aad la timaadana uu marnaanayaa waxba kama jiraan sidaasaa qalbiga nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi inna allaha laa yanduru ilaa suwarikum suuraddiinna iyo quruxda ilaahay ma fiirinayo walaa ilaa ajsaamikum jirkiinna marka cayilnaanta iyo dheerarka iyo gaabnida iyo caatanimada midna ma fiirinayo walaa ilaa acmaalikum xoolihiinnana ma fiirinayo taajir iyo faqiirnima alla idinkama fiirinayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigiinna ayuu ilaahay fiirinayaa waxa ku jiro iyo camalkaad qabanaysaanoo muuqaalkana waa laydinka fiirinayaa qalbiga iyo camalku kore inay iswaafaqaan ayaa la rabaa weeye haddii sidaa la waayo nifaaq baa qalbiga galaya kufri baa galaya ilxaad baa galaya waxaa galaya xaasidnima galaysa cuqdad iyo colaytan baa galaya qalbigu cudurro fara badan baa ku dhaca cudurradaasoo dhan marka qofku marad buu iska noqonaya qof jiran noloshiisooba macno lahayn ayuu noqonayaa fazaadahum allaahu marada waxaa la leeyahay marka cudurba fii quluubihim maradun fazaadahum allaahu marada dadkaasuu noqonaya dadka qur'aanka necab buu noqonaya dadka diinta necab buu noqonaya markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo lala hadlay nimankii munaafiqiinta waxaa lagu yidhi laqad ibtagaw alfitnata waqallabuu laka alumuura waxaa weeye fitnan bay kula raadiyeen baa layidhi waqallabuu laka alumuura umuuraha ayay kuu gedgediyeen si walbo dhinac walba inay kaaga keenaan ayay isku dayeen markaasaa walaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rabay oo sida ilaahay doonay baa markaa noqotay weeye waqallabuu laka alumuura xataa jaa'a alxaqu wadahara amrullaahi baa ilaahay yidhi wahum kaarihuun iyagoo necab ayaa xaqu soo kormaray weeye marka ahlu naarkana waxaa la leeyahay laqad jibnaakum bilxaqi walaakina akarakum lilxaqi kaarihuun baa la leeyahay xaqayd necabdeen marka necab aad u qabteen baad la dhimateen wey xaqa inaad jeclaato inaad nabiga jeclaato inaad sunnadii nabiga jeclaato inaad asxaabtii jeclaato dadka wanaagsan jeclaato dad la saaxiibto ayaa marka laydinka rabaa taqwaduna sidaasay ku imaanaysaa haddii la waayana cagsigeedaan noqonaynaa waa khatartaana waa dardaaranka koowaad waxaa weeye wasiyatullaahi ilaahay dardaarankiisa weeyaan nabiga dardaarankiisa weeyaan oo marka ambiyadii hore dardaarankoodii weeyaan خير ما أوصى المسلم لأخيه المسلم وتقوى الله ويان وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الباب إلهي ساحق اللقاته خير بدن الدنيا آخر الله قاتنا وتقوى إلهي ويان إن لا يمرك اللزوم طاعة الله إن الله إيمان نوي تقوى اللقاء وحال إلى الوقاية قاشان يو حسك الدفاع يو وحيابها فلارت الاسكادغو أيا الله دهي جري مركز سي قاشان وتاي مركز اللي يرينا شريعة وحوي gaashaan waxay kaaga noqonaysaa macaasida taqwo ilaahay markay qalbigaaga ku jirto macaasida kuma dhiiran karaysid xumaan oo dhan bay gaashaan kaaga noqonaysaa aakhira markii la tagana cadaabka ilaahay bay gaashaan kaaga noqonaysaa aan ku dadaalo inta markaan waxaan ku soo gabagabeenaya wasiyadayda wax yar baa la siiyay 15 baa la tagtana ma rabo waxaa weeye ruux walbow nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi falyandur almar'u man yukhalil buyr caruurta iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo marka odayaasha iyo hooyooyinka dhammaan ruux walbow ruuxaad la saaxiibayso iska fiiri buu yidhi maanta saaxiibadii way xumaadeen darooga ayaa timid fisqi baa yimid xaaraan baa timid zinadii baa timid khamra ayaa timid waxaasoo oo dhan dadka marka ku jiro inaan lala saaxiibin ee laga fogaado ayaa waajiba weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam falyandur almar'u من يخالل فإن المرء بدين خليله أي الروح لا صاحب الدين تسنقنا ياي اسكفيريو
جالس مركا جليس السوء وصالح أيها حديث قال البخاري ورينا روحا حن لا فريستو يومتك وناكسن لا فريستو كحامل المسك والنافخ الكير والنبي عليه الصلاة والسلام وحي كلمدين روح مسك حنبارسن مركا إما أن تبتاع إن تكيب ستوا صورة قلب وإما أن تجد ريحا طيبا إن عرف كاش هو صورة قلب وإما أن يحذيك إن وكسينا وصورة قلب يسابوير أما النافخ الكير بوفنا برتا أفوفا إن قرمون كلا كلنتو إيا إن مركا دنبلا كسودولان ودركا جبان إيا وحياة درمات كلا كل ما يسابوير إذا مركا صاحب بدنا ديبان نفيرنو دت كان لا صاحبينو أن ديبو سجفيرنو أنت أيان وبحيا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إلهي وحن ويدي سنيا فرحة يو خير كنين النوبديو إلهي دينتنا نغسو خاتمة نوصو بيو بلايد الشرك يسعط يا حنون كان إلهي النبى المريو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين